kulamadii shalay dhacay horyaalka Ingiriiska, Chelsea ayaa baraaji gashay 2-2 kooxda Wolves, halka Man United 4-0 lagu suuldaaray ay kooxda Brighton kaga badisay. Tottenham ayaa baraaji ku qabatay kooxda Liverpool oo u tartamaysa horyaalka Premier League 1-1 ay ku qabatay. barbaraha Liverpool muxuu kaga dhigay markaan fiirino horyaalka kala horeyntiisa. Liverpool ayaa leh 83 dhibcood, halka kooxda Man City ay leedahay 83 dhibcood. Liverpool ayaa hal gool kaliya ka badan kooxda Man City. Liverpool ayaa dhalisay 64, halka Man City ay leedahay 63 gool. waa goal difference-ga marka la fiirsho goolashii laga dhaliyay iyo goolashii ay dhaliyeen. 64 gool ayay leedahay Liverpool oo positive ah, halka kooxda Man City ay leedahay 63 positive ah. hal gool ayay Liverpool ku qaadi kartaa horyaalka hadii kulanka maanta ay kooxda ciyaari doonto, kooxda loo yaqaano Man City ay la ciyaari doonto kooxda Newcastle laga badiyo. haddii laga badiyo micnaheedu waxay noqonaysaa Liverpool inay goolasha sii dheeraad doonto. Man City waxay ku xirtay inta gool looga badi doono. ma laga badi doonaa Man City? waa su'aal aad u weyn oo u baahan in laga jawaabo. waxay u badan tahay laakiin Man City inay badi doonto. laakiin khabiirada isboorti ee kubadda cagta ayaa aaminsan weli aaminsan in weli wax badan ay horyaalka u kaarsan yahay. laga yaabay kooxda Man City in kulamada qaar ama barbardhac gasho ama laga badiyo. qaarkood waxay aaminsan yihiin in kooxda kubadda cagta ee Liverpool ay ku qaadi doonto goal difference ama waxa loo yaqaan farqiga goolasha. waxay ahayd 1989 markii Arsenal ay horyaalka kaga qaaday kooxda Liverpool waxa loo yaqaan farqiga goolasha. labada naadi ayaa min 76 dhibcood lahaa. saasitaana Arsenal ayaa kaga qaaday kooxda Liverpool goal difference. sidoo kale kooxaha Man City iyo Man United ayaa isku dhibco noqday min 89 dhibcood, laakiin kooxda loo yaqaan Man City ayaa lahayd 64 gool oo positive ah, halka kooxda Man United ay lahayd 56 gool oo ayagana positive ah. saasitaana Man City ayaa ku qaaday 8 gool oo ka badneyd kooxda kubadda cagta ee Man City. waa sanadkii 2012. misleedahay sanadkan wuxuu noqon karaa sanadihii aan aragnay ee kooxaha ay ku qaadayeen farqiga goolasha ee u dhaxeeya labada naadi. Liverpool ku qaadi doontaa farqiga goolasha u dhaxeeya ayadii kooxda kubadda cagta ee Man City kulamada harsan gool badan ma dhali doontaa. haddii laga badiyo kulan soo socdo kulamada soo socda 4 kulan oo harsan kulan kamid ah isku dhibco ay ahaan doonaan, balse waxay noqon doontaa meeqa gool ayay Man City dhali doontaa kulamada ay badiso. haddii labada koox isku gool noqdaan maxaa la xisaabin doonaa? labadii kulan ay is wajaheen labada kooxoodna baraajo ku soo dhamaaday. maxay noqon doontaa marka? ma kulan dheeraad ay ciyaari doonaan? waxaan kula socon doontaan barnaamijkeena qaybihiisa kala duwan. aad baad u mahadsantihiin si aad ula socotaan channelkan. fadlan waxaan idiga codsanaynaa inaad follow samaysaan, booqataana page-ka aanu ku leenahay YouTube-ka. aad baad u mahadsantihiin. anagoo ciyaaro live ah idiin soo tabin doono insha Allah.